السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي وعليه خالق مeel kasto aad joogtiin soo dhawaada waa mar kale video kale oo cusub marka hore aan ku salino nabigeena suuban عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم soo dhawaada walaalahayga sharafta leh maanta waxaan noo wadaa qiso cajiib ah gabar soo korisay wiil yar oo yatiim ahay iyadana markaas waxay ahayd xaas la qabo way dhaqaalay jirtay way soo korisay laakiin markii uu weynaaday wuxuu noqday ninkeed ayuu noqday dabcan ninkii hore uu soo furay markii uu soo furay asaga ayaa guursaday wiilkii ay soo korisay wuxuu noqday ninkeedii marka waa qiso cajiib ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaad heli doontiin inta qisadan u gudagalin ka hor waxaan rabaa laba qof wiil iyo gabar walaalo ah oo YouTuber hadda cusub ah oo soo dalbadeen inaad soo booqataan asxaabtaada waxay dhaheen muxuu ahaayna soo booqdaan subscribe noo saaraan marka waxay idinka dalbanayaan inaad u tagtiin subscribe-na u saartiin insha Allah khayr badan Allah idin siiyo bashbash TV wuxuu dhahay ma sha Allah anabay waxaan kaaga codsanayaa in aad ii sameyso linki ma wuxuu ka wada shoot out in aad ii sameyso wiilka walaalkeen ah fadlan u taga soo booqda asxaabteed inaad tiin u sheega madaxii kor u qaada insha Allah dhowr jeer uu soo dalbaday marka aan hal subscribe aan saari karaa ka badan ma haysti laakiin dadka uu dalbanayo waa adinka aniga aan idin dhaxeeyo marka u taga waana mahadsantiin inta u tagto khayr Allah idin siiyo ayaan idin leeyahay waana wiil wanaagsan oo caruurta baro quraan YouTube-kiisa waa YouTube kaale arag ah oo dadka caruurta yar yarka ah diin baro gabadha labaad waxa la Xafsa Bilan Beauty Xafsa waxay dhahday abaayo aaway codsigii aan ka dalbaday walaashay aad ay u fiican tahay in leys caawiyo gabadha hadda koor ay weydiisatay in shoot out u sameeyo waan u sameeyay iyada ayaan arkin dhowr jeerne linkigaada bink waa ku qabtay commentiga korkiisa adiga ayaan arkina u maleynaa marka aan walaalahayga waxay iga soo dalbadaan iska ma dhaga tiro hadalkoodana muxuu ahaay qof ka tilaabsatay ma ihi heerka maanta aad joogtiin aan xataa waa soo maray in garab isiin waa jeclaan jiray marka ma jecli dadka in aan ku fiirsado inkastoo aan dambad igu soo fiirsadeen laakiin alxamdulillah waa soo gudbay adinkan waa gudbi doontiin dadaala waa gaaraysiin marka walaalahayga waxaan idinka codsanayaa fadlan inaad u tagtiin inaad soo booqatiin ajir iyo xasanaad Allah idinka sii adinkane marka qisadin dhameysatiin tartiibkiina asxaabteeda u taga subscribe u soo saara labadoodaba waxaan soo dhigi doonaa commentiga ayaan muxuu ah linkiga soo dhigi doonaa fadlan u taga soo booqda marka qisadeeni ayaan gudagaleynaa geedkan ayantaan muxuu ahay mikrofoonkan mararka qaarkood qajac ka yeeris iska raali noqdo meel xun igu dhagan yahay ashan kan markuu dhaqdhaqaaqayo u taataabana marka qisada maanta aan noo wado waa Zahra iyo Umar Zahra waxay ahayd 17 jir waxay ahayd xaas la qabo Umarna wuxuu ahay 12 jir Umar marka Zahra waxa dhashay eedadiis ayaa dhashay Umar hooyadiis ayaa dhimatay aabiisna wuxuu guursaday xaaska kale markuu guursaday Umar ma daryeeli jiray xaaska kale inta ma sii jirin dharka ma dhaqi jirin aad iyo aad ay u rafaadsanaay madaxiisa waxa ku jira injir kaba la'aan rafaad ayuu ku noolay marka Zahra hooyadeedna Umar waxay u ahayd eedadiis marka waxay dhahday aabaha la dhalatay oo Zahra hooyadeed ah waxay tiri walaalo cunugan ani isii maadaama hooyadiis ay dhimatay uu rafaadsan yahay marka aabiisna wuxuu dhahay cunugayga anaa jecel aniga ayaana korsanayo kuma sii kari cunugina eedada waxay u jeedaa inuu rafaadsan yahay markii dab waxay u tagtay ee la hadashay eedadii aabaha qabay oo ay ku dhahday Umar hooyadiis waa dhimatay qofna kuguma haysato maanta adiga hooyadiis ah dhaqaalayso biri adiga ku anfacaa marka waxay dhahday ani Umar shaqo kuma lihi aan Umar aabiis ayuu mas'uul iga saaran yahay Umar wax mas'uul oo iga saaran ma jirto طبعا wax mas'uul ka saar ma yani qabayso ma dhahdo dhar badal ma dhahdo dharka ma dhaqdo ma wadanaysa marka waxay waaba sheegtay waxay aan mas'uul iga ma saarna aabiisna wuu diiday inuu eedadiis siiyo oo asaga walaashiis ah aabaha walaashiis marka eedada marka way soo raadin jirtay mararka qaarkood markii dambeeto marba soo raadisaa way wadaa ay soo qabaysaa cunto ay siisaa maalintii dambeeto waa la waayay Umar markii la waayay waxa raadiyay eedadiis aabiis la dhalatay
iyo Sahra oo ahayd eedadiis aabis la artay gabar ay dhashay oo markaas la qabay oo Cumar 5 sano ka weyneed wax badan kama weyneen 17 sano ayay jirtay marka Sahra Cumar waxay ka soo heshay guriga satuuxiisa ama fooqa guriga asagoo ku suuxsan oo duhur ay tahay oo qoraxda ay ku dhacday oo nafta ay ku dabayartay ay meeshaas ka soo qaaday markii ay soo qaaday ku dul ooysi Sahro gurigeeda ayay geysay muxuu ahaay intuu ka soo naaxay biyo ay ku shubtay kadib muxuu ahaay musqush ayay gelisay way u soo qabaysay maadaama markaas uu aad u liitay oo qof hadda suuxdin ka soo naaxay uu ahaay cunug yarna uu ahaay maalintaas way u qabaysay cunto ayay siisay dharka ayay ka badashay gurigeeda ayuu ku soo qabowsaday uu ka soo tagay maalintaas wixii ka dambeeyay Sahro waxay bilowday Cumar inay raadiso oo meesha joogo ka keento oo gurigeeda ay keento ay dhahdo soo qabayso musqusha gal uu soo qabaysto oo cunto ay siiso oo dharka ay ka badasho oo lacag ay u qariso maalintaasna wuxuu u suuxsanaay oo guriga fooqiis ugu suuxa waxay ahayd Cumar wuxuu lahay qooley laba qooley ayuu lahay qooleydii ayaa ka fakatay qooleeyda marka asaga iska dugsan jiray oo ehelka dhiga jiray walaalka dhiga jiray oo meeshaas iskaga mashquul jiray qooleeydi ayaa maalintii dambe ka biibtay marka sidoo u sugay meesha ugu ooynayay cunug yarna wuu ahay aad iyo aadna qooleeydiisu u jeclay meesha ay qorax fara badan ku dhacday duhurna way ahayd Cumar meesha ayuu ku suuxay marka meeshaas ayay ka soo qaaday maalintaas kadib maalintaas sidii uga naxday kadib waxay bilowday Sahro maalmo in ay raadiso in ay muxuu ahay lacag siiso in ay dharka ka badasho in ay tira qabayso hal tixsiya bibi way maanta uu wareen raba ana marka Cumar marka saas ayuu dhaqaalay jirtay Sahrana waa la qabay markii Cumar uu iskoolkii dhameeyay jaamacad uu galay nin weyn isku filan uu noqday uu shaqaystay jaamacadii ka baxay Cumar wuu guursaday Cumar markuu guursaday Sahrana hooyadeed waa ay dhimatay markii dambe Cumar markuu guursaday wuxuu xasuustay wanaagii ay Sahro u fali jirtay iyo Sahro intay ku dambeysay talo dadkii ayuu warwareystay dadkii markii uu wareystay waxa la dhahay Sahro ninkii way kala tageen nin kale way diid in ay aroosto waxayna ku nooshahay guriga walaalkeed ay ku nooshahay naagta walaalkeed uu qabanay waa dhibtaa waa rafaadisaa ciil ay ku nooshahay Sahro Cumar marka maadaama shalay asagaba ciilka ay ka ilaalin jirtay oo ay soo koorisay mararka qaarkood maalintii ugu horeysay satuuxa guriga fooqis ay ka soo qaaday u qabaysay uu iloobi waayay sidii ay muxuu ahaay cunto wanaagsan u siisay marka wuxuu istaa maadaama aad shalay ku badbaadisay maantana waa adigana oo naagtii aabaha ay ka badbaadisay adigana waa inaad ka badbaadisaa naagta walaalkeed uu qabo oo daalimada ah oo dhibaatayso oo xaasidka ku ah Cumar markaas ayuu xaas soo guursaday marka Cumar marka wuxuu la hadlay asaga waa wiil yar marka oo jaamacad soo dhameeyay oo shaqaystay oo dhaqaale haysto laakiin 30 sano ma uusan gaarin Sahrana way ka weynto 5 sano ay ka weyntahay marka wuxuu la hadlay walaalkeed Sahro walaalkeed ayuu la hadlay wuxuu dhahay waxaan rabaa Sahro inaan guursado waad igu dartid walaalkeed wuxuu dhahay Sahrana adiga sanad ahaan way ka weyntahay teeda kaleento waa garoob guur ay soo martay adigana hadda ayaad xaas guursatay abtigayna wuu ku dhalay marka adiga mashaakil uma baahnid xaaskaaga dhaqo adiga agoonimo ku soo koray iyo tiinimo ku soo koray Sahro kuma daraayi marka waxa ogaatay in Sahro la soo doontay xaaskii Sahro walaalkeed uu qabay oo dhibaatada ku haysay marka waxay rabtaa inay iska dheerayso Sahro oo guriga ka baxsato oo gurigana muxuu ay iyada sayrta ugu noolaato awal dib ayay ku haysay waxayna jecleed maalmaha kamid Sahro inay guriga ka bixi doonto dumaashadii marka Sahro walaalkeedii maskax saartay waxay dhahday haduu soo doontay gabar asturnaasho ku fiican tahay in laga qabay ku fiican tahay ku dar ninka ka soo doontay adi maxaa ka galay kulli haduu asaga dhaqan karo si maxaa ugu diidaysaa meeshan ku gaboobaysaa waxyaabahaas ay dhahday adi waxay ku qancisay in uu ku daro Sahro Cumar inuu ku daro Cumar wuu wacay wuxuu dhahay waa kugu dara sorry Sahro bismillaahir rahmaanir rahiim waa kugu dara oo diyaar waaye adi soo diyaar garoob Cumar wuu soo diyaar garoobay Sahro ayuu guursaday Sahro markuu guursaday wuxuu daris kala dhigay xaaskiisii kaleento xaaskiisii kale markuu daris kala dhigay Sahro waxay dhahday waa ina xaaskaaga kale aan soo barto waa ka diidiyay laakiin way ku adkaysatay in xaaska kaleento ay soo barato marka wuu u geeyay maalmaha kamid wuxuu dhahay aniga Cumar walaashiis waa ahay oo eedadiis ayaa dhashay Cumarna waxay dhahday aniga muxuu ahay isku meelan ku soo kornay
dhibaato badanna waa isla soo wada marnay anigana maadaama xaaskiisa aad tahay cumar saan u wanaajin lahay aad ku wanaajinaa shar iyo xaasidniman aniga qalbiga kugu mahayo adigana waxaan kaa codsanayaa inaadan iga dhigin naag lagula qabo oo haddaad saaxiibtinimadeeda rabin xataa muxuu ahay korkaas muxuu ahay aan yani iska dugaashano oo kor aan iska ogaano haddaan rabnay as dhexgelin anigana ogow wax xaasidnimo ah ama wax maseer ah qalbiga inaan kugu haynin ogow marka Zahra markii hadalkeeda ay dhamaysatay oo dhahday aniga wanaag iga filo sharha iga filanin oo meeshii habeenkii ay ku sheekaysteen xaaskii kalentana waxay dhahday aniga Cumar ayaa iga ka sheekeeyay in badan markii uu yaraay uu yatiim ahaay dhibaatadii uu soo maray iyo sidii adiga garab ah u sii jirtay sida u dhaqaalay jirtay marka anigana maanta markii iga ka sheekeeyay adiga in dhibaato ku jirtid oo dumaashida ay iidan ku gumaysato sida asaga loo soo gumaystay oo kaleento anigana waxaa noqday qof ku naxariisato maanta laga bilaabana aniga muxuu ahaay xaqayga dhibaato ka ma soo gaarayso maseerna ma jiraayo naag la qabo kalentana kama dhigaayo maadaama adiga garab la'aan aad tahay anagana maanta inaan garab ku siino waayo labadii gabdhood sidii ay habeenkii ku sheekaysteen gabar walbana habeenkii gurigeeda u hoyatay kadib ilmihii Sahrana waxay dhashay 3 cunug 3 wiil ayay dhashay gabadhii kalentana waxay dhashay 2 gabdhood iyo wiil ayay dhashay ilmihii ayay isla korsadeen ilmahoodana muxuu ahaay gabadhan waxay dhigi jireen hooyo tan waxay dhigi jireen hooyo 6 cunugba uma kala soocneen laakiin markii dambeeto waxaa dhintay Sahra ayaa dhimatay Cumar marka wuxuu dhahay maadaama aniga yatiimnimo aan ku soo koray yatiimnimo waxay tahay aan ogahay ma rabi ilmahan Sahro inay dhibaato arkaan oo adigana eeda aaba qabo oo kale ula dhaqantid sidii aniga ay eedada ila soo dhaqantay waxaan rabaa inaa ilmahan sidii ilmahaada ula dhaqmaysid ayagana ula dhaqantid marka markii dambeeto Cumar uu ka dardaarmay sanado badan ka bacdi hadana aabihi ayaa dhintay Cumar ayaa dhintay eedadii iyada ayaa ilmihii isla soo wada korisay waligeedna kala ma soocin ilmihii waa wada weynaadeen wax ayay barteen kadib mid walba uu guursaday meel ayuu dagay gabdhihii xaaska kalenta ay dhashay way u guuriyeen oo mid walba meel ayay dajiyeen walaalahood Sahra xaaskii kalenta oo gabdhaha dhashay laba gabdhood iyo wiil ayay dhashay wiilashii Sahra ay dhashay ayaa gacanta ku hayaan ilaa hadda qof kalenta kuma aaminaan waxayna dhahaan waxaan ka fiirsanaynaa hooyadeen iyo aabaheen ayaan ka fiirsanaynaa maalkii iyo xoolihii uu ka tagay aabahoodna ayaga ayaa gacanta ku hayaan islaanta xaaskiina waxay dhahdaa aniga wiilashan sida ay ii dhaqaaleeyaan ilaahay aan ku dhaartay dhahday ilmo ani aan dhalay ima dhaqaaleeyaano oo si fiican ay u wanaajiyeen eedadood ما شاء الله تبارك الله وحي هاي لبا حاس وقير له وبركيسن وإلهي نكعب سنايو ودحدودنا حاسدنيمو iyo shar iyo qiiro iyo maseer uusan oolin marka ما شاء الله تبارك الله sidii ay meesh ay naqshaas ku eg tahay iyadoo wiilasheedu u waaweynadeen reerna ay yeeshteen ayna u diideen inay hooyadii ku noolaato guri gabdhaheeda waxay dhan kugu ma aamineyno anaga nala joogaysa ayaga ayaan eedadood haystaan iyadana ilmaheeda way ka jeceshahay qisadaas quruxda badan ma sha Allah intaas ay ku eg tahay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed oo qisadan dhageysadno waxaan ka baqaa gabdhaha ima naga qab inay araroosa hadirtaan ee is dhahaan maadaama qurux badan yihiin dadka gabdhaha la isla qabo anagan aan soo tijaabino oo hadhoodin waxaan ka baqaa wax kale aan la kulantiin ana hadhoodii ay qabsan dadka dhan hadhoodii ay qabsan horta marka koobaad marka labaad gabdhaha la isla qabo kuwa badan oo isfahamsan way jiraan horto laakiin kulligood ma aha qaar oo waxa jiro aad isku neceb laasim maaha inay sida gabdhahan ay noqdaan laasim maaha qisooyin gabdho badan oo la isla qabay oo guurkooda guul ka gaareen oo muxuu ahaay يعني si fiican isku dhaqmeen oo ilma asla korsadeen oo muxuu isku wanaagsanayeen way buuxaan laakiin kulligood ma aha marka hada ku daysiteen qisadan hadii wax kale idin ka soo raacan aniga la qabsan بس خلاص idinku dardaarma waa idinku la kaftama insha Allah hadii laba guursanaysiin Ilaahay idin barakeeyo gabadhii gabar kaleento nin aqab guursanaysan idan Ilaahay u barakeeyo marka qisanta ay ku egtaa walaaleyga sharafta leh hadal badan yani
iga dhex guuxaya laakiin inaan dhahdhaha ma rabi oo qalad ii faham ma rabi qisada intaas ay ku eg tahay video hadduu ku cajabiyo like noo saar haddii ay ku cusub tahay subscribe ii saar inaa igu soo biirtidne sharaf ayay ii tahay intaa videoga mid lamid ku kulmayno waxaa idinkaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wassalaam allahuma salli wasallim wabaarak calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam mac salaam asxaabta sharafta leh